بسم الله magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Xasan oo lagu naanayso Cabdiraxmaan Awtaad gabaygan magaciisa la yiraahdo Halhays waa gabay sida roobka gudgudaha dhul badan iska soo maraya oo dhaliilo badan oo bulshada ka dhex muuqda in maaragtay la dhayo oo meesha laga saarana u baahan ayuu gabaygu ka hadlaya 2016 bishii 10aad buu ahaa xilligu soo baxay hibo weeye maansadu ninkii qaalin u haysto hadiyad weeye ee buhu baxshoon la iska helahayn haasaaway maahay dadka lagu hogaanshaay iminka habkeedii dideen hilimadeedii kul haduusan qosol ku hibayn uma hilowdaan waa waxa hor joogsaday murtidii haybada lahayd hayeeshee kamaan harin halkaad igu taqaaneen waxaan aheeliyay soo kaco loo hanweyn yahay Halhays baan ku dheehaa tixaha uga tusaalayne iga halabsan maanta midaan hoo ku leeyahay sida tuug habeen soo dhaco heer ku wada toosay oo lagu hambaabaray intuu hoobsay yiri maalka oo hoon ku wada yeedhay oo huurna lagu boobay ruuxa haraaryada ay baday ama sahiin raaga dantiina inta haybiya waanad hurudaane hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan halka aad ku qanacdeen dad noolumaha awoodeene heegada rag baa dhaafay oo maaris haybsadaye harka iyo habeenkaba nafluhu waa halgamayay heelkii tacliintiyo kolkay horumar soo gaadho hunguri raadin mooyee mar kale leedin heli waayi hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan aqoonyahanku hawshu laha uu ka haajiray waa wada hubeec midhan iyo hoori iyo liid cilmigooda midhihii hufnaahaatan laga waa hanti iyo hunguri raadin bay ku hamiyayaan humaag beenabay wada sitaan ku hindisoodaane halna kuma tarayaan kuwani horin yar mooyaane hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan bulshadana halkii lagu yaqiin haatan laga waayay nin walba hadaaqaba hadaan ciibo hoomayin hal abuurna lagu sheego iyo heerka gabayaaga waa hubsiimado laga tagiyo hoos u dhugadkii hawlkarkii iyo haldoorkii abwaan heerar sare gaaray ruuxaad way culas intaan waa hangabiyeen hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan dhalinteeni waa wada habo way habqamayaan dhaqankiina laga haajiriyo haatan laga guur ka huleela diintii afkii haybada lahaa dhulka gaalada ay ku hamiyaan ku hindisoodaan wixii dalka u hari lahaa horiba sida waxay haadu fadhaysaana waa hanadadeeniye nin han yari ma hana qaado oo horeyba loo sheegay hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan haweenkii guryaha joogay ee heerka dhaqanayay ubadka iyo dhalaankana hayiyo hawsha gurigooda iyagana halkii lagu yaqiin haatan laga waa madaxnimo ayay halabsadeen u hanqal taageene waa waxa halbeegii qarribay heerkii nololeed hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan wadaadkii xaq iyo haybin jiray ee hadalkiisa isagana halkii lagu yaqiin haatan laga waa hulin ma yashay khayr leh waa hamraanayaa danahooda bay ka hormarsheen haddii amarkiisi waa wada hanfade iyo habow horin yar mooyaane waxay nagu hodayaan garkiyo huga khamiiseede aniguna inta kama hadhay waan hubsanayaa idinkuna sidii hawtalhama kaska raacina siyaasiga hadda lagu habsaday waa habaar qabe halna kuma tarayaan kuwani horin yar mooyaane qaar baa amxaarada haligan hiido raadsada hagardaamada gaaladay tala u haystaane hadafka iyo hawl oo dhan baa lala habeeyay ma hirgeliyo shay uu sarramin gaalka hiirta leh taariikhdu waa shay haboon oo ku hawlgeli mana aan hilmaaminay inta waa hamiyaya hubka dhaca halaag iyo hurgubo hawsarka iyo suuga hoostamka iyo hartiga yeedha iyo hanadil mooyaane goortan heshiis noqonay gaal waa hal iyo dhimane sidee baan xaar u lahadlaana qamangooy hal daadadayna qalbigu ila hugmaayay hada qabiil baan ahay iyo hayban jabahayntu waa wax hankiini la haray himiladii hadaf yeesha Soomaaliyeey way samraanaysaan halkaasaan ku soo goynaya haatan gabaygii hambadana waxaan kaaga tagayaadan hawl gabine qaalmo hoora heegiya waxaan hala idin loogay haleeliya waxaan caan ramad hadha idin tuushay hoobaanta dhugucdiya waxaan heeli kugu sooray waxaan gabay idin horay waxaan heela daba joojay hooyaaladii iyo hadalkan joogtaysan hal bacaadka lagu maalay yaan heedhe laga yeelin oo qiimeeya maansada hufari idin hoos marin